رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب اللباس. درسيني حالي نودن به وها ربضنتا. إمام الشافعي في الأم وحو قدر إياه intaan loo bixin salaada ciida 3 bari ka hor la soomo, waana sida kutubta fiqiga ku taal salaada istisqaaga salaada roobtoonta intaan loo bixin 3 bari ka hor in la soomo, maalinta afraadna la baxo, sidaasuu ku qoraya kitaabkiisa. waana sida kutubta fiqiga ee mukhtasaraadkan ku aragnay. masaladaasina daliil ma laha, imaamku ijtihaad ahaan buu yidhi, laakiin waxna soo sax oo ku sugan ma uu jiro. ayib, masalada labaad ee baraarujinta mudan waxa weeye, waxaa caan ka ah meelaha qaarkood oo soomaalida deegaamadeeda ka mid ah in xilliga la roob doonayo inta xoolo la soo ururiyo in xoolo la qalo, kadibna meesha lagu diiqo lagu ducayso. masaladaasina iyaduna wax daliila ma laha, waana bidca wey. waxaa laga yaabaa inayna salaadba la isugu imaaninba, oo inta uun la soo ururiyo xoolo oo meel la isugu yimaado geela la qasho, xoolaha la qasho, kadibna la iska kala tago. in xoolo la qalo la isu yimaado oo salaad intaan soo sheegnay ka siyaasan, wax ka siyaasan la isugu yimaadaay oo qaab noocaasa loo roob doonaayo, iyaduna waa bidco shareecada khilaafsan wey. ayib, baabu libaasi. libaaskii buu baabu yahay. libaaska waxaa laga wadaa dharka ama waxa la labisto. taqriiban waxaa soo geli karaya waxyaalaha lagu fadhiisto, oo waa la dhihi karaa waxyaalaha lagu fadhiisto labis waa la dhaha. xadiidkii anaseed soo marnay baa yaa ku cad. waxaa ka dhihi jiray nebigu markuu isaga iyo ayeydii mise hooyadii iyo guriga ugu yimid, darin duugowday baan qaaday, waa kii dhihi jiray min tuuli maa lubisa. soo garanaysaan, yacni way madoobaatay xidhashadii la xidhay dherarkeeda daran, muddo dheer baa la xidhanaya. bimacnaa xidhashada wuxuu ka wadaa isticmaalka iyo ku fadhaysiga, marka labis waa la dhihi karaya macnaha. ayib, can abi caamir wuxuu marka hadda meeshan u keenay oo kitaabu libaas meelo kalu lahaa abwaabta libaasku, laakiin wuxuu munaasabadda uu hadda ugu xijiyey abwaabta salaada ugu xijiyey waxa weeye, horey wuxuu u soo maray cawrada asturkeeda. maxaa cawro ah? cawrada maxaa lagu asturaa? maxaa laazima in la asturo? halkan laakiin wuxuu keenay maadaama in cawradii la asturo ay laazimta markii la tukanayo, dharka cawrada lagu asturi karaay maxaa bannaan maxaanse bannaanayn, dhankaas waa ka hadlaya. dharkee lagu labisan karaa, dharkeese aan lagu labisan karin si guud. si gaarana waxaa soo gelaya dharkii lagu cibaadaysan lahaayo salaada ku asixi lahay. ayib, oo meesha waxaa soo gelaya bimacnaa haddii shay labis shareecadu reebtay aada qabto oo xaaraan ah, salaadaadii ma asaxaysaa mise asixi mayso? masalan waxaad qabtaa dhar xariiraad qabtaa, waadna tukanaysaa. ama ma ahee dhar aad soo dhacday baaba qabtaaba ama soo xaday yaad ku labisantay oo cawradaadii asturaya, waadna tukanaysaa. salaaddii ma asaxaysaa mise asixi mayso? masaladu halkaas waana masale khilaafiyo. sida jumhuurtu ay qabaani waxa weeyaan inay salaadu asaxayso maca alismi, waana masalada loo yaqaano aljiha munfaka. yacni jihatu nahyi iyo jihatu lamri waa kala duwan tahayo, jihatu lamri oo salaaddii in la tukada ah iyo jihatu nahyi oo labiskan shareecadu diidan tahay waa laba jihay kala tahay. marka jihadanna ismi bay keenaya dembi, jihadanina salaaddii iyo cibaadadiina asaxbay keenaysa. waa say u badan yahay, laakiin culimada qaarkood baa waxay qabaan salaada waa buraysaa. waxaa la mid ah asalaatu fi lardi almaqsuuba iyo muxuu ahaayey mara xaaraam in lagu tukada iyo
وهكذا فالكاسي قال سمعه. وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري لا يكونن ويأهان من أمتي أمضي ذا حق وحا كأهان دون أقوام قوميال أما لا يكونن وحا أهان دون من أمتي أمضي ذا حالي كمدين أقوام قوميال كاسو يستحلون بنيسان دون الحراء فرجي الحراء والحرير إيا حريرك الحراء سيدا استقار بقرية وانا سيدا صحدا رواية صوتي صحبك الحراء وحا لقوضا بمعنى حبنك ضمرك حبنك سرنك ضمرك معنى فرجك ويزين دانا لقوضا يستحلون أو بنيست الحراء فروجت بنيست أو زينة بنيست والحرير إيا حرير بنيست أيا أمضي إذا لقيه لدونا كم من غنضا رواه حوري أبو داود باوري وأصله حديث كان أسل كيسنا في البخاري بخاري بفجر